allow adigaan ku aaminayo. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. جزاه الله خيرا الشيخ عبد الرزاق. runtii qisaska fi suurati yuusuf waa qisas aad u cajab badan, iimaanna uu qofku ka ziyaadsanayo ahlu iimaanka. sheekha runtii qisadii hadda uu sheegayey iyo dadka hiqada ilaahay subxaana wa tacaala qaar ay ku qabaan iyo iimaankoodu meeshuu gaadhsiisan yahay iyo inaynan allah subxaana wa tacaala ka quusanaynin, waa qisadaasi waxay soo xusuusisay qiso magaaladeenna ka dhacday. qisadaas u fiirso, magaaladeenna ka dhacday Seattle, Washington. qoyskay ku dhacdayna hadda waa joogaan. runtii aad baan ula tacajubaa iimaanka qoyska iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala hawsha ay ku dambaysay. reerku muddo isqabeen, waxaan filayaa 10 iyo ziyaado sano ahayd. wax ilmo ah iyo wax uur ahna ilaahay subxaana wa tacaala ma siin. wax badan bay sameeyeen oo waddankan waad aragtay ilmaha laysku beeraa la yidhaahdaa, mar iyo lababa way sameeyeen, laakiin waa u suuroobi weyday. kadib waxay sameeyeen markii dambe inay xajka aadaan, ilaahay la soo baryo. haddana waxaa la aaday meesha dadku adduunku dhakhaatiirta meel baa ugu dambaysa. qofka soomaaliga markuu xanuunsado waddan walba tago meel baa layidhaah lagaga quusto. waxagee meeshaas jarmalkay aadeen. dadku way wada garanayaan jarmalkay aadeen. jarmalkiina waa lagu soo daweeyey, way soo noqdeen. qoyska hooyey ilaahay martiisa dheer haddii la wada noolaa reer isku fiican ay ahaayeen, waxay soo jeediyeen labada qof mid ka mida ka timid in ilaahay subxaana wa tacaala laysu faatixeeyo. la kala faatixaystaa la yidhaahdaa, laysu duceeyo, ilaahay risqigiisa iyo owlaadna la kala raadsado haddii iyaga ilaahay waa siiyo. labadaa walaal mid ka mida markuu qisadii soo jeediyey, midkii kale aad xaaskiisii u jeclaa, wakhti dheerna la soo qaatay, xumaanna uusan ku ogeyn, wuxuu yidhi arrintaasi muruga ku noqotay, mana xumaan karo qofka. owlaadda la yeesha oo ilmo la dhalana waxay ka mid tahay waxyaabaha maqaasida guurka ku jirta iyo waxyaabaha loo guursado. marka haddii muddo laga fikirayay, wa ficlan haddii aan sii caddeeyo, gabadha ayaa soo jeedisay in la kala socdo. wiilkana arrintu way ku adkaatay. markii ay aragtay inay hawshu adag tahay, wiilkana meel adag ay marayso, yaa gabadhu waxay keligeed baa iska istikhaarotay, ilaahay la tashatay, go'aan keligeed ingaadh. waxay ku tiri, ugu fiirsad hadalka, nin baad rabtaa inaad guursato kale, waxa aad doonina waa in ilmo ilaahay ku siiyo. soo ninkaagan hadda ku qaba ilaahay kaama siin kara ilmo, adoon waxba samayn, soo ma dhici karto inuu isagoo ilmo ilaahay kaa siiyo. gabadhii ninkeedii waa u timid, waxay tidhi arrintii waan ka tanaasulay, waana joojiyey, ninkaygaana tahay maanta iyo berriba insha allah. abshir, carabtu abshir bay yidhaahdaan. hawshii sidaasay gabadhii ku go'aansadeen. reerkii alxamdulillah waxna samayn mayno, isbitaal dambena tegi mayno, ilmana isku beeri mayno, meel laguma kala socono. ilaahayga subxaana wa tacaala qof kale iga siin lahaa, adiguba nin baa tahay alla waa kaa siin kara. ikhwaanii, waxaa aad u cajab ah, waxaa laga joogay go'aanka marka la qaatay, waan xusuustaa 2 wiig mise 3 wiig. gabadhii waa xanuunsatay, isbitaalkaa la geeyey, uur bay lahayd. allahu akbar, waxay noqotay dadkii xaaladda uga dhan
آذي لهين الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم حكمدها إذا حزبه أمر صلاة إسكبع على الرجال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة marka salaad rasuulka dumrigooda ama arrin ku adkaata salaad buu galayaa humumtii iyo dhibkii waa daynaya ruuxaaniyaad iyo jawi kale u galaya isagoo wuxuu ka soo baxayaa ilaahay xamdigii umuurtiisa u kala degatay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan isku xirno sheekha ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo runtii muxaadaraad cajab badan bay ahayd taabanna haysa qof kasta oo muslima qof weyn iyo qof yarba inooguna sugan tahay cibro iyo faa'iido wixii ummaddii hore ku badbaaday unbay dadkan dambada ku badbaaday diintan kuma hagaagaysaa la yidhaahdaa ilaa dadkii hore waxay ku hagaagtay unbay ku toosaysaa marka innagana waddadaa dadkii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala ka badba jir aan qaadanno ilaahina subxaanahu wa tacaala inagu arsaaqo صبر يا عبسبة شيخنا إلهي سبحانه وتعالى محاضرة ميزان الحسنات الله